kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani warbaahinta xulka wararka ku soo dhawaada warka qodobadan idin heelana waxaa ka mid noqonaya madaxweyne farmaajo oo soo saaray digniino culus haddaba digniinaasi maxay yihiin waan idin soo gudbinayaa Saciid Cabdilaahi Dani oo dowladda federaalka Soomaaliya uga digay arrimo ay faraha kula jirto haddaba arrimahaasi maxay yihiin waan idin haynaa dowladda federaalka Soomaaliya oo jawaab kulul ka bixisay go'aankii Kenya una yeertay safiirka dalkaasi odayaasha dhaqanka cadaado oo ka hor yimaada heshiiskii dowladda federaalka Soomaaliya iyo Ahlus Sunnah wal Jamaaca ay ku gaareen magaalada Dhuusamareeb ayaan idin soo gudbin doonaa al-shabaab oo shaaca ka qaaday inay dileen in ka badan 12 askari qodobadaasi aad daawo doontaan taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 1 bisha 7 July 2019 oo diyaar garooba daawashada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan saaxiibayaal channelkan haddii aad ku cusubtiin subscribe dhaha ku soo bira si aad u heshaan warar iyo warbixin xasaasi ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxa uu soo saaray digniino culus madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ka qayb galay munaasabad siyaasadeed loo soo agaasimay oo lagu xusay kowda luulyo taasi oo ka dhacday garoonka kubadda cagta ee Stadium Konis ee magaalada Muqdisho munaasabadan oo ahayd mid lagu dabaaldegayay kowda luulyo 1960 oo ahayd maalintii xornimada iyo isku darkii koonfuriya waqooyi waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya saraakiil ciidan iyo kumanaan shacab ah oo kala yimaaday degmooyinka gobolka Banaadir Saciid Cabdilaahi Dani ayaa dowladda federaalka Soomaaliya uga digay arrimo ay faraha kula jirto madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani oo ka qayb galay munaasabada kowda luulyo 59 sano guuradii ka soo wareegatay markii gobolada koonfureed iyo waqooyi xornimada ay ku midoobeen ayaa khudbada uu kaga hadlay midnimada dalka iyo xaaladda haatan Soomaaliya ay marayso Saciid Cabdilaahi Dani ayaa sheegay inay rajeynayaan in 60 sano ay u buuxsami doonto sanadkan soo socda in midnimada dalka ay soo laabanayso dowlad wanaagna lagu tilaabsanayo sidaas ayuu sheegay inay rajeynayaan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa jawaab kulul ka bixisay go'aankii Kenya una yeertay safiirka dalkaasi dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si degdeg ah ugu yeertay safiirka Kenya ee Muqdisho Lucas Tomba Soomaaliya ayaa danjira Tomba ku wargelisay qoraal cabasho ah oo ay kaga dacwoonayaan Soomaaliya war lagu daabacay bogga wasaaradda arrimaha dibadda dalka Kenya 27 bishii xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi Kenya oo kulan la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Yaasiin Xaaji ayaa qoraal barta Twitterka wasaaradda arrimaha dibadda lagu sheegay in Kenya ay Somaliland ka wada shaqeynayaan iskaashiga labada dal hadalkaasi ayaa loo arkay inuu yahay culays siyaasadeed oo dowladda Kenya ay saarayso dowladda federaalka Soomaaliya qoraalkan cabashada ah ayaa lagu sheegay inay hadalkaasi u tixgelinayaan inay halis ku tahay madax banaanida midnimada dhuleed iyo safaaradda Soomaaliya isla markaana ay Soomaaliya u taagan tahay daris wanaag ixtiraam laba dhinac iyo iskaashi dhow la yeelato dariseedka ayna sidaasi ka mid tahay dowlad wanaaga Kenya ayaa dhaleecayn badan kala kulantay baraha bulshada markii ay adeegsatay weedhaha labada dal waxaana ku xigtay warqadii maanta ay soo saartay dowladda federaalka Soomaaliya cabashadan ayaa ku soo aadaysa xilli uu weli mugdi ku jiro xiriirka diblomaasiyadeed ee dowladaha Kenya iyo Soomaaliya kadib markii ay Kenya ka xumaatay dacwadii ay Soomaaliya u gudbisay ICJ ee ku aadanayd muranka Kenya iyo Soomaaliya u dhaxeeya ee dhanka badda ahi odayaasha cadaado ayaa ka hor yimiday heshiis dowladda federaalka Soomaaliya iyo Ahlus Sunnah ay ku galeen magaalada Dhuusamareeb kulan ka dhacay magaalada Cadaado oo maanta ay ku yeesheen odayaasha iyo waxgaradka magaaladaasi ayaa waxa ay uga soo horjeesteen hadalkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ee ahaa in gogosha shirkaasi dib u heshiisiinta Galmudug lagu qabanayo magaalada Dhuusamareeb madax dhaqameedka ayaa sheegay inay ka soo horjeesteen hadalkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ee uu xalay ka jeediyay munaasabadii kowda luulyo oo xalay ka qayb galay magaalada Dhuusamareeb odayaashan dhaqanka ee ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya in la dhigayo gogosha ayaa waxa uu sheegay inay tahay mid dana gaar ah laga leeyahay aysan jirin wax gool ah oo dhigi doono magaalada Dhuusamareeb odayaashan ayaa waxay sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya u gudbin doonaan dacwad ka dhan ah
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre waxayna sheegeen in faragelin xoogan ba ra-isul wasaaruhu xasan uu ku bilaabay waxauna sheegay inuu jajabinayo ama uu kala daadinayo maamulka dowlad goboleedka galmudug maalintii xorriyada ah ay dhalatay xorriyadaasi weli waxaan ku jirnaa adkeynta xornimadaas isu keenidda dadka soomaaliyeed oo caawa aad halkan ka maqlayseen tusaale ka mida tallaabooyinka aan hore u qaadayno weli waxaana hor taagan caqabadihii iyadoo adduunyaduna ay ka sii horumartay 59 sano ka hor sidaas daraaddeed midnimadii iyo geesinimadii dhallinyaradii dhaliyo xorriyaddaas ay lahaayeen oo laba jibbaaran ayaa looga baahan yahay wiilasha iyo gabdhaha horteyda fadhiya caawa sababtu waxa ay tahay dalkani waxa keliya oo dhibka ka saari kara dadkiisa waa in dadkiisu ay fahmaan marka sida keliya oo looga bixi karo dhibkaas waxay tahay inay Soomaali gacmaha isqabsato in la isu dulqaato in la isu tanaasulo in la is cafiyo in kuwa naga dambeeya oo ciyaalkeena ah mustaqbalkeena ka wanaagsan loo reebo in danta guud oo Soomaaliyeed laga hormariyo danta gaarka in kuwa diidan dalkani inuu hore u maro intaan istaagno kulligeen aan ku niraadno cod dheer waa idinka diidnay waa la soo dhaafay waqtigaas waa muhiim in awoodda ay shacabka Soomaaliyeed gacmaha ku qabsadaan caawa walaalayaal waa habeenkii xorriyadda gaar ahaan waa habeenkii midnimada haddaba waxaan leeyahay danta aanu midowno dowladnimada aanu midowno nabadda aanu midowno cadowga aanu midowno dhismaha dalka iyo horumarkiisa aanu midowno mustaqbalkana aanu midowno sababtoo ah iftiinkan caawa bilowday keliya waxaa lagu xajin karaa midnimo ugu dambayntii usbuuc ka hor markii aan ka soo baxayay magaalada muqdisho waxaa la siiyey talooyin badan inta badanna waxay ahayd ha isku tegin galmudug waad ku soo fashilmaysaa ha isku tegin ma midoobayaan ha isku tegin heshiis ka dhici maayo ha isku tegin magacaa kaaga xumaanaya waxaan rabaa inaan idiin sheego markay sidaas ilahaayeen idinkaanay idin garanayn reer galmudug waxa ay ka samaysan yihiin ay garanayn inaad khalad u sababta ay iigula talinayeen ha isku tegin waxay ahayd reer galmudug baanay aqoonin geesiyaashii ay yihiin aanay garanayn waxay ka samaysan yihiin ayaanay fahmin waxaan idinkaga mahad celinayaa inaad tidhaahdeen been baad kula taliseen ra-iisul wasaaraha ugu dambayntii waxaan leeyahay waxaa mahad mudan dhammaan shacabka reer galmudug gaar ahaan dadka qaybta ka ah dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan kuwa igala shaqeeyey inaan meeshan soo gaarno oo berri noo suurto geliyey shaqo cusub inaan bilowno laakiin waxaan rabaa inaad u istaagtaan u sabcisaan u mahad celisaan qofka istaahilo bilad geesi caawa oo ah sheekh shaakir kaasoo ka shaqeeyey midnimada halka aan ka sheegnay
waxaan rabaa halkan inaan fariin uga diro shacabka reer dhuusamareebeed, kuwa reer cadaado, kuwa reer caabudwaaq, kuwa reer huurshe, kuwa reer xeraale iyo kuwa aan u socdo oo aanan weli tegin oo aanu tegi doono kulligood. waxaan rabaa inaan u sheego waa ku mahadsantihiin sida aad ii soo dhowayseen, dadaalkii aad ka shaqayseen, midnimadii ee uu dhalay waa idinka faa'iidadeedii caawa halkan uga jeedo. waxaan rabaa sidoo kale inaan u sheego waa muhiim inta dhiman in la dhammaystiro, in laysu dulqaato, in gacmaha laysku soo dhoweeyo. galmudug midaysan, tayaysan, toosan waa sida keliya shacabka iyo dhallinyarada reer galmudug ay ku heli karaan adeegyada ay nooga baahan yihiin. ugu dambayntii waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed oo dhan oo shaki ka qabay dalku midnimo ma gaari doonaa, dowladnimadu mahanad qaadi doontaa, oo aaminsanaa galmudug lama xallin karo, waxaan rabaa caawa inaan idiin sheego waa 1 luulyo. waxaa kaloon rabaa inaan idiin sheego soomaaliya mustaqbalkii iyo maalmihii ugu fiicnaa way naga horeeyaan. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. guud ahaanna warkii aad ka daawanayseen warbaahinta xulka wararka saaxiibayaal waa naga intahay nabadgelyo.